milkiyadda hantida maguurtada ah ee dalka Soomaaliya waa fursad dahabi ah oo ay ka faa'iideysan karaan dadka raba inay maalgashadaan dalka. qiimaha dhul ama guri lagu iibsanayo dalka Soomaaliya caadi ahaan aad ayuu uga hooseeyaa meelo badan oo caalamka ka mid ah. haddaba qiimo intee leeg ayaad ku heli kartaa inaad ku iibsato dhul ama aad ku kiraysato magaalada Muqdisho? muuqaalkan ay ku ogaan doonaa. Muqdisho waa magaalo soo jiidasho leh oo ku habboon in la maalgashto. waagii hore caasimadda Soomaaliya waxay caan ku ahayd dagaal iyo khatar aan dhammaad lahayn. hoos u dhacii ku yimid rabshadihii iyo faqriga. Muqdisho waxay noqotay doorasho macquul ah oo dhulkeeda la maalgashan karo. ku soo dhawaada barnaamij kale cusub oo aan kugu soo bandhigayo dhismayaasha magaalada Muqdisho. anigu waxaan ku noqon doonaa martigeliyahaaga, waxaana kugu saacidi doonaa wax kasta oo ugu baahan tahay inaad guri dhisato ama guri aad iibsato. muuqaalka ku soo dhawaada. gurigaan maanta idin tusi doono wuxuu ku yaalaa degmada Warta Nabadda ee xaafadda Cali Kamiin. cabirka booska dhismaha waa 13 ama tradisho. dhismaha wuxuu ka kooban yahay 3 dabaq oo 7 apartment leh. apartment walbana wuxuu leeyahay 3 qol, 2 musqul iyo jiko. marka laga reebo 2 apartment oo ku taala qaybta hoose. ku soo dhawaada, waxaan rabaa inaad idin tuso apartment walba iyo qolalka ku yaalo. apartmentigan wuxuu ka kooban yahay 3 qol, 2 musqul iyo jiko. xagan waxa ka qabanayso jikada. jikadan waa jiko waasac, waxa loogu talagalay inaad ku dareento comfortable fiican. xagan waxa kugu yaalo khaanadihi. khaanadan waxaa dhigin kartaa alaabta u baahan tahay, bariiska day ahaan lahayd, baastada wixii ugu talagashay. xagan khaanado kale kore kugu leedahay, waxaad gashan kartaa qaandooyinka iyo waxalaala waxa ugu talagashay. xagan waxaad dhigan kartaa cookerka. waliba khaanado kale kugu yaala meeshan, khaanado kale waa kuna korkan. meeshii aad ku dhaqan lahayd alaabtaada waaye, saxamankii meesha ku dhaqan lahayd. xagan waxaad dhigan kartaa qasaalada. waxa ugu muhiimsan jikadu ay leedahay marka la fiiriyo view-ga meeshan ku yaalo. apartmentiga jikada marka laga soo tago, xagan wuxuu ku leeyahay qolab ku yaalo, musqul kale xagan isku taalo, intan sidoo kale waxa ku taalo qol. marka qolka waxaan isla fiirin doonaa master roomka. qolka master roomka laba faa'iido wata. musqulaha xagan kaga taala, musqusha marka laga tago xagan waxa sidoo kale kaga yaalo balkoon leeyahay. balkoonkan waa idin tusi doonaa. hal mar musqushan ku hormarno. musqusha waatana waxay ku leedahay waji dhaqaaga ku leedahay. sidoo kale waxa waaye tuunjiga meeshan ku yaala. xagan waxa ku yaalo balkoonkaaga. balkoonka mar aad tuso. balkoonka waa balkoon aad u qurux badan. view-ga xaafadaha dariskaaga iyo xaafadda oo dhan waad ka arki kartaa. hadda waxaan isla fiirin doonaa apartmentiga kale ee kan ka duwan. apartmentiga guriga oo dhan way isku wada eg yihiin marka laga reebo apartmentiga ugu sareeyo. apartmentiga ugu sareeyo wax badan uu kaga duwan yahay. wuxuu kaga duwan yahay horta hore sida uu u dhisan yahay, area-da uu haysto. apartmentiga apartment weyn ma ahan, kaliya wuxuu leeyahay jiko meeshan ku taalo. jikada waxa ku dheeriya living area. apartmentiga waxa uu sii dheer wuxuu leeyahay musqul iyo qol iswata. xagana wuxuu ku leeyahay jiko aad u qurux badan. muuqaalka maxaan dhameeraa saxabo, waxaan ciliga hayaa nasiib xumadeeda. haddana walahay gurigaan inuu dhisan yahay ama aan isdhiilahay waad arki doontaa. anaaba degi lahaa. muuqaalkan ugu talagalnay inaad ku tusno dhismayaasha magaalada Muqdisho qaybtiisii ugu horeysay halkan uu ku eg yahay. haddii aad doonaysaan inaad kiraysataan gurigan ama aad u baahan tihiin in guri leedin iibiyo ama leedin dhiso, waxaad la soo xiriiri kartaan shirkadda guriga dhistay. muuqaaladan waxay noqon doonaan taxana ugu talagalnay inaad ku tusno si isbuuclo ah dhismayaasha laga dhiso magaalada Muqdisho si aan ugu wada qayb qaadano dib u kaca dalkeena.